aniga iskuma maleeyay macnaha inaan curyaan ahay sababtoo ah ilaahay markuu macnaha adduunkan oo abuuray shay ugu weyn ilaahay qof walba ku manaysto waa iimaanka haddaad iimaan leedahay oo ilaahay iyo rasuulkiisa aaminsan tahay inaad curyaan tahay inaad dhoolad tahay inaad tahay qof naafa ah ama qof dhagoola ma aaminsanid macnaha qof aniga oo lugaha qabo ardimihiis u fiicayin agteeda markuu marayo ama iga careysiiyo waxaan cuqdada ma dareemo sababtoo ah waxaan ku kalsoonaa iimaankayga iyo xoogu ilaahay ugu manaystay inaa qofkaas macnaha aan ciil ahaan ugu cadgoosan karo ayaa aaminsanahay laakiin qof lugihiisa qaba oo maanta ciile wallahi wax cuqdadii ma gasho alxamdulilah markaan waa ku qanacsanaa nolosheeda laakiin macnaha dhiirigelintan waxay ka soo bilaabatay aniga nafsadeeda ayay ka soo bilaabatay dhiirigelintan waxaan isku dhiirigeliyey macnaha inuusan qof bini'aadana maanta lugaha qaba inuusan waxay dheereen waxa haysta bulsho aad u qurux badan sababta bulshada hadii ku dhiirigeliyaan ee ku tusaa macnaha qiimaha agtooda ka leedahay macnaha noloshada isbedelay ayaga sababta macnaha u faraxsanahay asxaabteeda ayaa macnaha sababa aad ayaa u mahadcelin asxaabteeda والله كوحد أنا قاعد تاجر وكوحد أرسنال مدة أديك 15 سنة بر أيان أرسنال تاجره يا معنا وده قاعد ديل القضاء ولا فاجو ماشي قد بس اللوجو أرسنال لو وركا صورك أرسنال هذا وجعله qof walba cuuriyana waxaan ku dhiirigelinaa in uu aamino wixii qalbigiisa ku jira inuu sameyn karo ha isdhiibin matiid cuuriyaan wallahi alcadi baa ku sheeg matiid cuuriyaan waxa waaye ninka maskaxdii qalbiga ka dhinto waa